Programming language runtii dhowr qaybood baynu u qaybin karnaa ama dhowr qaybood baynu u qaybinaynaa. Qaybta koowaad waxa weeyaan waa dhanka communicationka. Waxaan leenahay waa communication tool. Waa tool xidhiidhin ah ama xidhiidhiya ah. Marka muxuu xidhiidhinayaa ama yuu waxa weeya u xidhiidhinaya. Marka waxaan leenahay waxa weeya waa bridge between human and computer. Waxa weeye waa bridge u dhexeeya bini aadanka iyo sidoo kale computeriska. Bini aadanka iyo computeriska oo markaa waxa weeyaan bini aadanku inay xidhiidh la sameeyaan computerka waxa u fududeynaya programming language kala duwan ee caalamka ka jira. qodobka labaad waxa weeyaan programming language waa formal language. Formal language caalamka waxa ka jira waxa la yiraahdaa formal language iyo informal language. Formal language waxa weeyaan waa luqad runtii bini aadanku si exactly u fahmi karo. Informal language kuna waa luqad badan aan bini aadanku u fahmi karin. Marka waxa weeye programming language waxay leedahay waxa la yiraahdo syntax qeexan ama structure tilmaamo qeexan oo runtii waxa weeyaan aynu arki doono saddexda maadaba waxay yeelan doonaan saddex syntax oo kala duwan oo midba midka kale ay ka duwan tahay. qodobka labaad aynu waxa weeyaan sidoo kale eegayna waxa weeyaan semantics wax la yiraahdo. Semantics waxa weeyaan code walba oo aynu qorno wuxuu leeyahay wax la yiraahdo meaning ama macno u gooniya oo uu isagu leeyahay. Haddoo kale maanta haddaynu qorno print hello world oo kale syntaxka wax iska leh Python hadday iska leedahay wuxuu caddaynayaa codekaas inuu ku print garaynayo hello world oo kale. Marka sidaas daraaddeed waxa weeye waa formal language. Okay, sida markaa waxa weeyaan formal language maadaama ay tahay programming language ku yahay waa sida waxa weeyaan luqadahan dabiiciga oo kale baa markaa aynu ku tilmaami karnaa programming language. Okay, sidoo kale wuxuu leeyahay set of structure tilmaamo kala duwan ama tilmaamo badan. Tilmaamahaas waxayna siinayaan inaynu waxa weeyaan runtii stepyo kala duwan u marno si aynu u xalino problemskeena. Soomaal garan structurekaasi waxaa ka mid ah sidoo kale inaynu waxa weeye adeegsado algorithm oo kale oo ah waxa weeyaan xisaabta ay ku dhisan tahay computer science uu ku dhisan yahay. Any field kasta oo ka mid ah computer science-ka uu ku dhisan yahay algorithm-ka. Marka set of structure weeyaan waa structure badan oo la isku geeyey kuwaas waxa weeyaan ina siinaya inaynu problemskeena ama caqabadaheena aynu ku xalino. sidoo kale waxaan oran karnaa programming language waxa weeye waa essential for software development. They are the primary tools for building software application of all kinds. يعني waxa weeyaan waa aasaaska toolka aasaaska ah ee lagu dhiso waxa la yiraahdo software applicationska. qayb kasta qaybtay doonaan ha ahaadeen qaybahoo dhan any kinds kasta oo uu leeyahay software engineer ama software applicationsku waxa weeye waxa aasaas u ah oo essential u ah waxa weeye waa programming language. Programming language haddii aanu helin softwareku waxa weeyaan maanta caalamkaas wax software ama wax application oo aan isticmaali lahayn ma jiro. Marka sidaas daraaddeed waxa weeyaan waa aasaaska softwareska. Marka inta waxa weeyaan waa intaynu ku soo qeexayno oo ku koobayno haddii ilaahay yiraahdo programming language.